Ustaadi haddaan u nimaadno dhanka financial marketska oo runtii barnaamijyada forex trading iyo cryptocurrency dhammaan barnaamijyadaas financialka Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyowga phobia-da ka qaaday sababtoo marar fara badan baa lagu dhacay barnaamijyadan iyagoona aqoon badan runtii u lahayn kadib waxaa dhacday in dadku phobia ka qaadaan haddii aad tiraho internetka ayaa dhaqaale laga sameeyaa ustaadi adiguna waxaad ka mid tahay dadyowga cryptocurrency aad kugu ololeeya oo sidoo kalena marar badan ka faalooda haddaan u nimaadno barnaamijka cryptocurrency talo muxuu yahay horta waa sax ustaad narrative waxaa jiray Soomaalida business u horeeyay financial Soomaalida soo dhex galota forex ku ahaa 5 sano u dambeysayna waxaa dhacday waaweyn dad badan lacag looga dhacay dhalinyaro waxaa jirta forex ku jiray oo si khaldan magaca forex u diray laakiin suuqyada financialka sida caadiga suuqyada sax way laga shaqeysto qofka hadduu bartana cilmi ahaan u barto waqti kale dadaalo oo ka shaqeysan kara ama investor ha noqdo cryptaha maalgashto iyo stock ama taqaana trader ha noqdo cryptaha iyo forex ka trade garay wax barasho orto u baahan weeye marka cryptaha u nimaano cryptaha waxa mudaatirin inuu dunida ka yahay waxa way dadka aad u qiiseeyaan dadka ugu weyn xataa koonka bitcoin kale ay hanti ku leeyihiin dowladda weyn Mareykan ilaa China iyo shirkadaha weyn Amerikaan ba hantida ugu badan kula koonkan marka waxa weeye hadda la rabo in laga dhigo waxa dhaan waa digital gold-keena caadiga dahabka naqaano azoo digital marka qiimahaas uu kala yahay lacagaan u jooga marka waa lacag digital waxa weeye way aad u tir badan yihiin 4,000 bay ku dhow yihiin qofka waxa weeye coin buu maal gashanaya lacag buu ku gadanaya waqti weyn u siilay marka investment noqoto waqti uu siinaya waa adoo dhulka too kala $1,000 u gatay 3 sano kadib dhulkii $1,000 ahaan may dhulka qiimihiisa kor u kacaya marka wixii digital weeye oo coin ah lacaga faa'iido badan laga hela waana lagu faa'iiday sidoo kale suuqan dad scammers uu leeyahay financial kadib scammers la qatar weeye qofka inuu barto gudaha u soo galo meelaha saxda ah ka maal gashto cilmi ahaan u barto waan kula tiriyaa